madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo isagoo ku hadlayay magaciisa kan dawladda ka shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tacsi u diray aqoon-yahanka waxgaradka waayeelka qoyskii eheladii qaraabadii iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland geerida ku timi alla naxariistii jannaha ka waraabiye abaanduulihii hore ee ciidamada qaranka Soomaaliland marxuum Sareeye Guuto Cabdilaahi Xaaji Jaamac Calas oo ku geeriyooday caasimadda Hargeysa aas qaranna loogu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu si gaar ah uga tacsiyeeyay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba ciidamada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay marxuumku waxa uu kamid ah saraakiisha hawlkarka iyo daacadnimada leh ee sida hawlkarnimada uga qayb qaatay dhismaha iyo taabagelinta ciidamada militariga jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo wuxuu alla marxuumka uga bariyay inuu naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo aqoon-yahanka waxgaradka waayeel qaraabadii qoyskii asxaabtii uu ka baxayna uu samiriye iimaan saadiqa ee baka siiyo geesta kalena gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga isagoo ku hadlay afka gudida fulinta kan golaha dhexe garabyada xisbiga laamaha dibadda iyo gudaha iyo guud ahaanba taageerayaasha xisbiga kulmiye waxa uu tacsi tiiraanyada u diray qoyskii qaraabadii eheladii iyo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland geerida naxdinta leh ku timi alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuum Sareeye Guuto Cabdilaahi Xaaji Jaamac Calas abaanduulihii hore ee ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku geeriyooday isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysana aas qaran loogu sameeyay marxuum Jaranaal Cabdilaahi Xaaji Jaamac Calas abaanduulihii hore ciidamada qaranka Soomaaliland waxa uu kamid ahaa ayaa warmurtiyeedka lagu yiri saraakiisha muddada dheer ku soo jiray ciidamada ee aqoonta badan iyo waaya aragnimada lahaa wuxuuna door weyn ku lahaa hubka dhigistii nabadeyntii beelaha Soomaaliland sidoo kalena wuxuu kaalin muuqato ku lahaa buddhigii dhismaha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland khaasatan kuwa militariga gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxa uu marxuumka alla uga bariyay inuu naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo qoyskii qaraabadii eheladii iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland oo samiriye iimaan saadiqa ee baka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun